ninka la yidhaaho maxamed cabdullaahi oo madaxweynihii hore aniga ebedkay ima arag aniga waa u jeeday hal maroo aqalka sare yimid geed tallaala meel bannaanaha shirka lagu qabahaayo aqalkaa la furaaye aan uga aaday waa la wada og yahay maalintou soo galay iyo maanta inta ka raaxlana madaxtooyada xaggeeda uma laaba jimco kasta masaajidkan ku duka jiray meeshaan tegi jiray kumanda buluusiyaan wax ka doonan jiray waxbaan kala basrin jiray hadday ii suuro gasho albaabkaasoo dhan waa iga xidhmay inaan maka mukarrama aan mara maahane xaggiisa uma leexan haweniiga ma gelin xataa ma fiiri maxaa soo heray ra'iisul wasaaraha la magacaabay baarlamaanka baasiyay guriga martida guri la yiraahdo madaxtooyada dhexdiisa uu ra'iisul wasaarihi galay 30 beriyaa muddo inuu soo magacaabo xukuumadda oo baarlamaanka geeyo oo soo baasiyo 27 beri gurigii ra'iisul wasaaraha gal lahaa laga bixi waayay waa iska dhex fadhiyay qoftaad rabtiina weydii kartay markii dambe taliyaha Amazon oo janaka Ugandaaska ahayo xukuumaya u yimid baabuur container ku waday saasoo u baxshay 3 beriyo ka dhiman ra'iisul wasaarihi guriga u banaanaaday oo cusbay horta taariikhdiisa qoftii rabto waa taas haddana maxamedow soo bax ku bixi ma qofti isle maxameda yamaan yeesho oo xistiisa Soomaalinimo gasho oo damca ku jiro ka baxa isle lagama yaabo inuu ka baxo haddii caalamku ninkan waa og yihiin ay yiraahiin marka waxaan rabnaa inaad ummadan isku goyne ad baxdo ay yiraahiin waa mar in loogu tago mahana waa mar lamaad waxa uu islaahay haddii la dagaalo beledka duma dadku u faani jiro iidoon beled naga dumin oo wax naga halaabin hal hadar talgaar inta kalena qofuba ma jooginba waxa ku soo hiray beeno isku aleeyaha waxaan aad ugu mahad celiyaa odayaashayn oo soo dhici jiray oo ka soo xaabsan jiray shirba jiray xoodiyaan ka xaabsadee waa xaasad xoolo noo sidee kula dhaqmeen waa ka soo qaateen dadkii ana ka hayno xagga ana ka hayno Muuse xuu og yahay xabad ma oga hebelaa eber ciidanka ilaa waxa la tagay cadalaarti asa iyo dad lacag ugu siiyo soo fiiriyeen boqol askari xataa ma joog meeshaan ninkaani wuxuu qabay in hayaha mataqaana wuxuu hubo iyo shaqo hubo loo qabto wahay ninka waa nin la siray oo in xarag galay maartay sida alwaax aboor cunay oo abriya xaasoo hero waqti xaadirkan la heesta waaye asaga la heeste ma hene wax ma haysi igaartayna hoo shaqayso oo meelaha joogta isla yow sii tagi ha joog waa haadiin joog hadaa tadaw tago hadhow shaqo hilmaysiin war waa la idinka balaqaaday shaqo waa helis dadkaad la midtiin waxaan aad ugu mahad celiyaa madaxweynaha horta waxaan u mahad celiyaa ninka la yiraaho gudoomiyaha aqalka sare madaxweynaha Puntland madaxweynaha Jubbaland
inti kale oo hayhe mataqaanaa garatay tolkan wixii laga rabay kaliya ayay hayhe mataqaanaa hay qabteen waana u qabyo mahad celin ma gaari waxaa soo helay cabdulla raagi abwaan cabdulla raagi abyaano badanaan qabnaa laakiin asaga ayaa un mar dhow in laysoo tuuraan xoogaa dhegansaday kelmadaan ka qabsaday wuxuu yidhi haddii aan qof xumi koor lahayn qalad dhammaa waayuu yidhi ninkaan hadduu koor lahaa lahay maba yimaadeen laakiin hadda koortiisa qoortii ugu xidhay mid kala haddana jirto wuxuu yidhi isla gabaygaasay ku jirtaa qofka sare islaan uga ekaha qurunka hooseeyuu yidhi labadan kelmo heeskaasaan ka maqlay waa gabay cajiiba labadan xabo gabaygaasaan ka maqlay waana gabay cajiiba gabay qabadku waa ku liitaa waxaan rabnaa marka ninkan wakhtigiisa waa dhammaaday waxaa laga cabsayow hayaa mayd meelyaala laga baqaa ilaahay muqaadirtiisa meeshaan caalamka oo la sheegaayo run uma sheegi karto hadduu wax kala beddelow haaya waxaan leeyahay ra'iisul wasaarahayna waa mahadsan yahay amniyou ballan qaaday nin askari yahaa qashinqub in la dhiga la dilay ra'iisul wasaare adaa lagu haystaa inta amniga damaanad qaadaa la dilay gabaraa kaameradna laga jajabshay hayaha mataqaanaa gacanno loola tegi taliyaha saldhigga xamarweynaa ula tegi yah haddaada kuwaas ku aad waa markaad damaano qaaday adiga amniga adaa lagu haystaa lamadaba haddaad labadii ninoo dadka falkaas ka dambaysa aad keentana nin waxaa tahay gartow qaaday ka soo baxay haddii labada aad wax ka qaban weysana yaa hadda waxaa tahay nin oo gadaashiisa uu ninka wax uga dheelaayo yah farmaajo gadaashaad wax uga dheelow haayo waa furfurow haaya ninkaan ninka dilaayana asagoo ka soo amar qaatay ninkaan kaamarada jibrihayana asagoo ka amar qaatay yaa ka amar qaadahay marka labadan fal inaa ka daba tagto waayo waxa lagugu aamini karo iyo howlihii laguu diray oo laguu idmaday inaad qabato dadkaagu waa ku addeecay wuxuu kugu addeecay ilaa dibaddii gudaha axmed madoobe ka soo bilow dani axmed madoobe guddoomiyaha baarlamaanka ummaddan magaaladan hadda joogto waa ku wada addeeceen maxay kugu addeeceen waxay kugu addeeceen inaad haye mataqaanaa waxaad qiratay ad qaba karto haddaad qaba weyso yah haddaadaa hawshaada qaba waayo waxaa soo hera xoolahan istaagi maayaan yah jidka waa lagu furay ra'iisul wasaare hawsha waa kuu taas dadka waa maraayaan waa ku mahadsantahoo fura haddaad tiri dadkaynaaba maraay oo hayahe mataqaanaa dad farmaajokiisaa kama xirreey dhaga fudaydaan ku furnay waana kuwaas waa noo furan yihiin laakiin farmaajoon bixin geelna joogsan maa idana joogsan maayaan lana seexa maa ama bood ama kor u fiiri afartin moo kula jirto beenta kuu sheegi oo ku dhihi jirta waxaan makacayaal waay ma hayaa jooga kuwa horta aninku waynaha lacagtaa kaa dhammaato kuwa ma soo socdaan kuwa kale oo hayaha mataqaanaa oo agtaada joogjoogo kugu soo heray beenay kuu sheegaan ma waxba kaama celi karaan waxaa kuu soo hera fahd yaasiina kuu soo heri fahd yaasiin aniga markii madaxweyne xasan sheekh la doortay aan waxaan ku arkay nairobi meel makhaayadahoo la xamul midi la yidhaaho aan maalin ankoo koox u qada tagna
meel faraxala waa sidaan sheegayo waay oo bannaanka ku taalo aan iskugu tagno fahadoo kolleyba ra'iisul wasaare qof laga dhiga daneeyahay ee laga dhigi diido qofka laga dhigay caradu baqrabo fahad wuxuu waa igu saxno oo u qarxaday aniga warkaygu ma badnayn waxaan idhi waa kan waa joogiyaa waxaan idhi fahadow dowladdan hadda cusub tahay qofuna kaamale yah caradan iskala helo hawshaad wadaada ka wado carado oo qabay waayo horta waxa uu hadda wado fahadow adigana iyo qolada ku soo dirtay oo dowladdan carbeeda yah xirig oo aan ceelka idinka bixin aad ku gasheen yah hees dhihin ayaguna maahay rabaan ma joogaan aniga heer hebel waayo mali laakiin waa la wada yaqaan dowladdaasay dadkan wax u reebo meel xun ay dadkan ka mareen sidii kuu naceen shidaalkoodana gaaskooda lagama yaabo sidaad u socoto inaad ku qodatiin inaad ku qaadatiin lagama yaabo meel walba ha ku dhicina hal goboloo Soomaali kamida dadkuma dhamidiin lacagna waa laga badan yahay midda dalkeena ka jirihayso waayo waxaad maalgeliyay haalaha 4 sanaana anaku dadkayna noo cunay si kasta sidoo ku cunaanba kaaga mahad celimayno khiyaanad lagu siiyay iyo inaad khiyaanto laakiin waa ka khiyaano badan marka adigana saasan ku leeyahay dawlad kasto dulmigaas oo kale nugula dhaqmaysana iyadana waxaan leenahay ka fiirsato anagu dad macaamilkooda toos loola xiriirana ma hayna dad in la calaajo hoosta laga galo mani marka halahaas nasaasan leh qaraabo idinkaan idin soo noqonaa waa ku mahadsantihiin waa salaamantihiin xoolaha niyad samida fiicnaanta ayaa ka badan nimanka aad ka dhalateen oo leeyahay hayehe mataqaanaa kor hadii leeyahay Soomaali u galo hoos hadii leeyahay meelahan hoose oo hadda meelahan deganoo hawiye leeyahay kulligood waa u mahad celinayna shaqadii laga rabana waa qabteen meelaha wax ugu sameeyay wallaahi aan ku dhaartay madaxtooyada hadii la aad inaan qof ka soqayso oo ku celiyaysan jir kuwa joogaad leedahay adig yah kuwa madaxtooyada ku jira aad leedahay amisoona ku soo hiro madaxweynahan oo fiican oo hadda madaxweynaha laga dhigay oo Museveni madaxweyne Museveni amaal badan aan kullana waan ugu leeyahay Kenya badda hawsheeda meel hala dhigo horta basha badda ma hina la hayna kale badda qof bixi karta male hal qof bixi karo ma jiro hanti dadeed waay Somtel isgaarsiin socdaasho satellite lagu xiray sakanka go'een bay Somtel nasiisay kaalayo la saaxiib Somtel waxay idin haysaa internet xawaare sare leh ku shubo $5 oo kaliya oo hel 6GB ku shubo $10 oo hel 13GB ku shubo $20 oo hel 28GB ku shubo $30 oo hel 40GB adiga oo kaga shubanaya adeega casriga ah ee dahab sidoo kale ku raaxayso adeega muraad ku shubo $3 oo hel 10 daqiiqo oo ku hadala ku shubo $5 oo hel 2000 oo daqiiqo wow kala xiriir faahfaahintaas dheeriyana nambarka macaamiisha ee shaashada kaaga muuqda 151 ama 152 ku raaxayso sim cardka Somtel mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac